dhalinyaranimadu mushkilaad bay leedahay haddii laga faa'iideyn waayo mushkiladeeda koowaad waxaa ka mid ah alfiraaq waqtigii inuu adigaba cudur kugu noqdo qofku hadduu hadaf la'aan noolaado waqtiga laftiisa bukaanba ku noqda haddaba cimrigiiba aynu leenahay waxaad haysataaba isagu ahaa haddaad waxaad ku bixisay u garan weydo isagunba inta caajis kugu dilaad sodhan doontaa xaggaad waqtiga ku lumisaa maxaad ku bixisaa isagii inaad bixisaa dhib kugu ah waayo insaanka ilaahay uguma talagelin inuu meel fadhiyo laguma talagelin inaad hurudo seexato soo toosto caynka ahaato haddaad markaa hadafkaad u noolayd garan weydo wuxuu noqonayaa waqtigaaga laftiisiiba wuxuu noqonayaa dhib dabeetana waxaad raadinaysaa waxaad ku lumiso mid laadhuu cayaara mid turub cayaara mid dubnada cayaara muxuu cayaaraya wogii inaan waxba ka soo baxaynin wuxuu cayaarayaa waqtigan baaba balaayo ku ah waqtiga laftigiisii ayuu rabaa inuu isdhaafiyo mid qayila mid kan sameeya jas cimrigiisii qayb ka mid ah hantidiisii qayb ka mid uu rabaa inuu tuuro hantidiisii qayb ka mid ah ayuu rabaa inuu tuuro oo isilowsiiyo aynu leenahay waa wixii ugu qaalisanaya uu sito firaaqu waxa keena marka waxa weeyaan waa cadam almas'uuliyya firaaq haddaad aragto qof uu hayo waa qof dareemi waaye ama garan waaye mas-uuliyaadka saaran waayo mar kasta waajibaadku awsac min alwaqt mar kasta waajibaadka iyo shaqada iyo waxa lagaa rabaa haddaad tidhaahdo kuqun iyagaa ka badan waqtiga laakiin markaad taa garan weydo iyo mas-uuliyadku saaranba haddii lagu yidhaha underage baad tiyo dhalinyara idinku tiina iska cayaara haddii qaabka lagu tarbiyeynayo uu yahay carruur baad tiina waxba ma ogidin hadday qaabka aad u noolaataa uu noocaa yahay idan waqtigii waxaad ku qabataba ma haysid waqtigii waxaad ku qabataba ma haysid mu'minka saadiqii markaasi ma yaqaano firaaq ilahayna wuxuu leeyahay fa idaa faragta fansab dada axwaalu dunyaha iyo intan ka soo faaruqdo cibaadada iyo kan ku daal baa la yidhi habeenkii istaag ilaahay isu taag daal waayo dunidan intaad joogtay inaad daashaabaa lagugu talagalay dunida ninkii yidhaahda waa raaxaysanaya wuu riyoonaya nin raaxaysto dunida jooga lama hayo raaxadu waa raaxat alqalb waa qofku inuu niyadsan yahay raaxadu waa qofku inaanu warwar qabin raaxadu waa qofku inaanu baqa qabin yani waa dareen qalbi raaxadu iyo maaha mid jidheed ama mid nolosha kale raaxa kuma jirto waayo ilaahay wuxuu leeyahay yaa ayuha alinsaanu inaka kaadixun ilaa rabbika kadxan famulaaqi inaka kaadix baa lagu yidhi laqad khalaqna alinsaana fii kabad beer xanuun baanu ku dhex abuuraa la yidhi mid daalaya baa tahay baa ilaahay yidhi xagga alle u daal nolosha tani male baa jaanis la yidhaahdo waan raaxaysanaya raaxadu waa inaad qalbiyan inaad deganti raaxadu waxa weeye maanta haddaad cadceeddaa ka shaqaynayso cadceeddaa haddii lagu yidhaahdo shaqo 12 duhurnimo 12 barqeed bilaabmaysaa jirta ilaa 3 galabnimo soconaysa oo halka ugu kulul laga shaqaynayo laakiin lagu yidhaahdo maalintiiba $100 baa la qaadanayaa ma la shaqaynaya wada malaynaysa ha waa la shaqaynaya ma adigoo caajisaysan oo la cadceedday gubaysaad shaqaynaysa mise adigoo sile wallahi 100 kana shaqee horta 3 bay bishii noqonaysaa yani satisfied baad ku tahay shaqada waad ku raalisay waayo waxaad ku qancisay inuu kaa soo gelayo maxay dhaqaale fiican kan marka qalbiyan waa degantay mushkilad cadceedan iyo siigadan iyo boodhkan waxaan oo dhami kuguma hayaan mar haddii aad helayso maxay hadafkaad cadceedan u gashay mar haddaad helayso idan qofka mu'minka ahi nolosha tan uu ku talagalay kadxigeeda daal iyo dil iyo dhac iyo boob iyo mushkilad waa iskaga talagalaa laakiin wuxuu ogyahay in janno la helayo wuxuu ogyahay in insaan aad noqonayso insaannimadii lagugu talagalay saa daraaddeed shaytaanku wuxuu ka faa'iidaystaa waqtiga firaaqa ah haddaad eregto oo seexato oo soo toosto oo eregto oo seexato oo soo toosto macnaheedu waxa weeyaan mas-uuliyad baad dareemi weyday in waxbaba ku saaran yihiin baanad rumaysanayn